ku tartamaysa xisbiga wadani warwareega dunida walbahaarka keeno waqtigiya ayaamaha isweydaaranaya weecweeca dhaliye cabdikariin axmed mooge musharaxa golaha deegaanka magaalada hargeysa ugu saamaynta badan xilligan maalmihii ugu dambeysana baraha bulshada aadka u haystay ayaa ku dhawaaqay maanta xusbiga uu ka sharaxan yahay walow hadalkiisa halka dambe ka raaciyey walaaca uu ka qabo maadaama uu hal xusbi iska sharaxay in taageerayaashiisa qaar ka midii ay ka weecdaan xusbiga anigoo ka xun haddii ay dhacdo in go-aankaygani uu iga reebo cidi taageersanayd haddana waxaa lama huraan noqotay inaan ku dhawaaqo saddexda xisbi ee jira xisbigii aan iska sharaxi lahaa habraaca tartamayaasha doorashada golaha deegaanka Soomaaliland guud ahaan ayaa sababaya musharax kastoo golaha deegaan inuu iska soo sharaxo saddexda xusbi ee ka jira dalka waqti xaadirkan cabdikariinna isagoo ka hadlaya taas sheegayna inaanu jiri karin musharax madax bannaan oo iskii u tartami kara uu ku qasbanaaday inuu iska sharaxo mid ka mid ah xusbiyada ka horse uu la kulmay saddexda xusbi qaranba isaga oo saddexdaba si gaara u xidxotay ugu dambeyntii go'aan ku qaatay inuu iska sharaxo xusbiga mucaaridka ah ee wadani oo ka turjumaysa qofka aan ahay inaan noqon doono qof wada matala dhammaan shacbiga hargeysa u hadli doona u doodi doona shacbiga hargeysa isaga oo aan u kala abtirinayn qofkaasaan u ahaa dadkii reer hargeysa qofkaasaan u ahaan doonaa shacabka reer hargeysa waxaanan ahay mid ogsoon in ay tahay inaan matalo shacabka halkii aan soo horreysiin lahaa inaan matalo xisbiga aan ku sharxanahay siyaasigan u hanka weyn helista reer hargeysa mida cabdikariin axmed mooge ayaa ka soo muuqday shir jaraayada oo saaka qabtay shirkiisan jaraayad hadalladiisa badanaa waxa lagu qeexi karaa in maanta laga maarmi karo siyaasadda caaqilka iyo suldaanku dabada ka riixaan ee kan dooro ugu dambeyn cabdikariin oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu ahaan doono qofka uu maantayay una ahaan doono shacabkiisa hargeysa sida uu berito la ahaan doonana insha allah ay noqon doonto sida uu maanta yahay marka xisbi kasta oo aan iska sharaxo waxaa hubaala inaan horreysiin doono inaan shacbigayga hargeysa wada matali doono aniga oo aan u kala abtirinayn reer hargeysow maayirku ha inoo dambeeyo laakiin xilka maanta idin saaran waxa weeye inaad doorataan xildhibaano wanaagsan waayo shacabku toos uma soo doortaan maayirkooda 17 xildhibaan ee dooran doonto ee aad u dooran doonto golaha deegaanka ayaa iska dhex dooran doona maayirkii caasimadan maamuli lahaa ee ka dhigi lahaa caasimadda ay u qalanto sababtaa daraaddeed haddaad shacabka tahay xil baa ku saaran codkaaga xildhibaanka aad u soo dhiibaysaa inuu noqdo xildhibaan adiga ku matala oo kuu doori kara maayirka aad jeceshahay inuu hargeysa ama qofka aad jeceshahay inuu hargeysa maayir ka noqdo shacabka waxaan ka codsanayaa inay aada uga fiirsadaan aada isaga hubsadaan qofka ay u soo dooranayaan magaalada hargeysa inuu u noqdo ama ka mid noqdo golaha deegaanka mustaqbalka hargeysa wuxuu ku xidhan yahay xildhibaankaad soo doorato sidaa darteed haddaad hargeysa jeceshahay aada iyo aada iyo aada uga fiirso qofka aada dooranayso aniga haddaad i doorato sidaan horeba u ballan qaaday waxaan ahaanayaa xildhibaanka shacabka xildhibaanka matali doona hargeyso oo dhan xildhibaan aan la aamusiin doonin oo u hadli doona shacabka hargeyso oo dhan baahidooda ka hadli doona iyaga matali doona qorshayaasha fiican ee loo dejinayo magaalada hargeysa in lagu horumariyana qayb ka qaadan doona haddii alla maayar ka dhigana hore aniga uga hadlay halka ugu dambeysa waxaan shacbiga hargeysa u sheegayaa
markii aan wax badan rogrogay arrimo badan eegay inaan haddii ilaahay yidhaahdo ku tartami doono oo aan ka mid noqon doono musharaxiinta u tartamaysa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee ku tartamaysa xisbiga wadani marka sidaas ayaan shacabkayga kula socodsiinaya go'aankii ay inta badan iga sugayeen ilaahay waxaan ka baryayaa go'aankan inuu yahay go'aan khayr qaba waxaan ilaahay ka baryayaa go'aankan inuu ii soo jiido cod fara badan waxaan ilaahay ka baryayaa go'aankayga inaanu qof jeclaa oo ila socday aanu iga reebin sarif laha asad money exchange ka sarifo goor kasta iyo goob kasta kuna bedelo lacagtaada kaashka iyo taada dollarka adigoo isticmaalaya qaabka markaad bedelayso lacagtaada dollarka ee doonaysa inaad kaash ka dhigato xidig 327 xidig 31166 xidig lacagtaad sarifayso afargees sidaasi la mid ah markaad kaashkaaga doonayso inaad dollar ka dhigato taawo xidig 227321165 xidig lacagtaad sarifayso afargees asad money